daawadayaal gudaha ayaan u galaynaa haddii ay noo suurto gasho. Waa kaasa waa qayb foorno ah oo diyaarsan. Bur ayaa yaallo sidaad u jeedaanba. Bur ayaa yaallo. Waxaan rabaa marka inaan dhanka kale u gudubno. daawadayaasha qadarintii qaayaha mudan waxaan ka codsanaynaa in muuqaalka share gareysaan si ay u arkaan bulshada Soomaaliyeed xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta. Gurceel dagaal ayaa ka socday laakiin saaka jawigu wuu ka duwan yahay sidii hore. daawadayaasha qadarintii qaayaha mudan muuqaalka hala share gareeyo sidoo kale tafalowga iyo like-tana inaadnaan naga bakhiilin ayaan ka codsanaynaa. qaybahan oo dhan saad u jeedaanba waa qaybaha halkan faleembooyin ayaa ku xiran. faleembooyinka ku xiran aad u jeedaan qaybtan waxay qaybta gurmadka caafimaadka Al-Sunna lahayd. gurmadka caafimaadka sidoo kale halkan waxa iyadana ka muuqata sida u jeedaanba quracaas kale isaguna waa goob ay friisin ahaan u sameysteen oo qaar ka mid ah saadka oo yaalay. mid ayaan u dul istaagaynaa daawadayaasheena qadarinta qaayaha mudan. waxaan kala soo hadlayaa waa jaamacadda oo ku taala gudaha degmada Gurceel gaar ahaan dhanka bari ee magaalada Gees ayay ku taala. halkani waa goobta dagaalka ugu qaraar oo ka dhacay. waxaan halkan si aad ugu dagaalamay ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunno. fariisimaha difaacyada ayaan wali dul taaganaa saad u jeedaan daawadayaal. difaacan waa u jeedaan sidoo kale difaac kale ayaa isna halkan ku yaallo oo u jeedaan. daawadayaal muuqaalka hala share gareeyo. jaamacadda ayaan ku sugannahay. darbigaas aad u jeedaan waa jaamacaddii. waxaan hadda taaganahay waa difaacyadii bannaanka oo aan inta badanba idinla wadaagayno sida xaaladihii ugu dambeeyay ay ahaayeen. daawadayaasheena qadarinta qaayaha mudan waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka share gareysaan ayaan ka codsanaynaa. halkaas waxaa ka dhacay daawadayaal jaamacaddii ayaan ku wareegaynaa saad u jeedaanba. jaamacaddu waa goobtani inta badanba aad ka maqlayseen warbaahinta markii loo eego oo dagaalka ugu culus oo ka dhacay. jaamacadaha ayaa la isku haystaa haddii aad maqashay. waa goobtan hadda aan ku suganaa. waa u jeedaan sanduuqyadii rasaasta. ayaan intusaynay daawadayaal. waa goobtii jaamacadda. difaacyadu ilaa waxay teedsan yihiin wadada jidcadka ah. dadka garanaya ayaa yaqaana. idinkana waan idin tusin doonaa in ay difaacyada ahlu sunna yaalaan. difaacyadani waa dhanka waqooyi ayay u jeedeen saad u jeedaanba. daawadayaal muuqaalka hala share gareeyo. muuqaalka halkaasi ayaan hadda aan ku sugannahay waa jaamacadaha. difaacyada ayaan rabnaa haddii ay noo suurto gasho inaan idinla wadaagno. wadada dheer waa taas. wadadani waxay aadaa ilaa laamiga ayay aadaa saad u jeedaanba. daawadayaal saad u jeedaanba ilaa laamiga ayay wadadani aadaa. dhanka difaacyadaan rabaa inaan u gudbo oo bari u jeeda. difaacyada bari u jeeda ayaan rabaa inaan la wadaago. inaan idinla wadaago daawadayaal. muuqaalka hala share gareeyo. waa kuwan difaacyadii waa kuwaas. sidoo kaleete difaaca kalena waa kan. eriyada jaamacadda waxaa gebi ahaanba ku hareereysan difaacyo adag ay dhigteen ahlu sunno.
marka loo eego sida difaacyada ugu hareereeyeen goobtani. daawadayaal waa kaas difaacaas ayay dhigteen. difaacani waxa uu jeedaa dhanka bari ayuu u jeedaa. difaacyadii kale aan soo marsiinaynay qaar waqooyi u jeedeen, kuwa qaar waxay u jeedeen dhanka qorax u dhac. marka daawadayaasha qadarinta qaayaa wadan waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka noo share gareysaan si ay u arkaan walaalaha Soomaaliyeed ee u baahan xogtii ugu dambeysay. walaalaha Soomaaliyeed ee xogtii ugu dambeysay si ay u helaan waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka share gareysaan. jaamacadaha ayaan kala soo hadlayaa oo ah goobtii ugu adkeyd ee dagaalka ugu culus ka dhacay. waxaana ku sugan goobtani ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa dowlad goboleedka Galmudug. haddii ay noo suurto gasho waxaan rabnaa inaan la soo wadaagno saraakiisha amniga hadalkooda ayaan inala soo wadaagi doonaa. hadda waxaan kala soo hadlayaa jaamacadaha ayaan ku suganahay aan kala soo hadlayaa. dhammaan difaacyadii waa ku soo wareegnay. hal mar ayaan gudaha ku laabanaynaa kabacdina ciidamada waxa ay saraakiishu noo sheegeen in goobta aan dib uga laabano. daawadayaal ciidamada ammaanka ayaa banaanka xarunta ay taagan yihiin. haddana waxaan ku laabanaynaa gudaha jaamacadda si aan muuqaalkeeda kugu dhamaystirno. jaamacadda waa ka intaasi ka koobantaas aad u jeedaanba. qaybtan waa qayb dhismo ah, qaybtaas kalena waa qayb dhismo ah. ekis jaamacaddii farsamada technicalka lagu baranayay ay ahayd. daawadayaal muuqaalka hala share gareeyo. qaybahaasi dhismayaashu ay ka dhisan yihiin aan tegayno waa qayb ay leedahay jaamacadda Caynul Xayaat oo dhowaan ekis gudoomiye golaha fulinta Al-Sunna uu leeyahay goob waxbarashana ahayd. aad ayaa loogu dagaalamay. aad ayaa goobtan loogu dagaalamay. ciidamada ayaa ku sugan hadda goobtan. ciidamada ayaan hadda soo dhex galnay. gebi ahaanba dhismuhu jaamacaddu intaas ayuu ku egyahay. daawadayaal aad u jeedaan waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka share gareysaan, sidoo kale tana like gareysaan si bulshada Soomaaliyeed ay u arkaan. taliye Bakay ayaa hadda kormeeraya. daawadayaasha qadarinta qaayaa mudan waxaan ku suganahay waa jaamacaddii oo gebi ahaanba ay joogaan ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira qaybaha kala duwan. daawadayaal ciidamadii ayaa kormeer ayay sameynayaan. goobtani waa goobtii jaamacadda Caynul Xayaat oo inta badanba ay ku sugnaayeen saraakiisha Al-Sunna. waa arkani way dibreen bacda galiya bacda iskaga duuba. daawadayaal meydadkaasi aad ayay u dibreen, mana noo suurtagelayso inaan kaamiradan kugu aadino sababa jira awgood. xerka saxaafaduna ahaan markii loo eego waa inoo diidayaa inaan meydadkaasi aan kaamirada ku tusno maadaama sida ay yihiin qofku hadduu arko aad uga naxayo. daawadayaasheena qadarinta qaayaha mudan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaanan inka codsanaynaa inaad muuqaalka
share gareysaan la wadaagtaan asxaabtiina ciidamada saraakiisha haddii ay noo suurto gasho waa la hadlaynaa waxa haddii ay noo suurto gasho inaan la hadalno haddii ay noo suurto gali weysana dabcan in aan iska noo suurto gali weyso inaan iska daynay noqonaysaa laakiin daawadayaal muuqaalka intaas ayaan ku gabagabeynayaa saraakiishana waxaan la sugaynaa xilliga ay warbaahinta ay la hadli doonaan ayaanu sugaynaa sidaad u jeedaanba boorkaasi waa beerkii jaamacadda Caynul Xayaat askari ka mid ah saraakiisha qaranka howlgalkani ku jiray ee hadda meeshaan horteena maraya waa saraakiisha amniga ciidamada Haramcad boorka jaamacadda markii aad eegto daawadayaal saad u jeedaanba halkaad nagala socotaan waa jaamacadda Caynul Xayaat ex jaamacaddii hore oo ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira qaybaha kala duwan ciidankaas haday yihiin Haramcad haday yihiin Gorgor iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad iyo sidoo kale 17aad ayaa howlgalka qayb ka ah daawadayaal saad u jeedaanba jaamacaddi waan idin dhameynay muuqaalkeeda waxaan u bixi doonaa banaanka difaacyada hore oo shacabka looga celinayo inay gudaha u soo galaan waxaa sugaya ciidamada Haramcad oo kamid ah ciidanka sida gaarka u tababaran oo ammaanka goobta jaamacadaha aad u adkeynaya shacabka aad ayaa looga diiday inay halkaan u soo gudbaan sabab jira awgood saraakiisha amniguna waxay noo sheegeen inta ammaanka laga xaqiijinayo inay shacabka gudaha u soo gali karin goobtan difaacu ilaa xagga ayuu yaalaa inta aan halkan ku sugannahay waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal xaaladihii ugu dambeeyay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka hala share gareeyo sidoo kale hala la gareeyo intaan dib ugu kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo